wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay Allah leedahay si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan aryaadaha kalamaanay dadkan ya qabiil ay isu dilayaan kuwa kaloon qabiil ahayna waa sii dilayaan ayakina damiir male ay ku kala joogsadaan duqow kala celisana male marka anigoo dhan ciilan la darxumaysanaha beriga waxbaha ka murugoon dadku marka khilaafku ka bato oo ay waayaan wacyi wanaagsan lagu hogaamin waayo aqalligaa ka luma waa islaayaan waxaysan u baahnayna waa qabtaan fiira dheer iyo caaqil garasho foojigan fakarkii duqowde fidnada lagu daweyn jiray ma fayooba maanta waa faaruq madaxi aqligeena fiicna fasaxu ku maqan yahay warka eedan fahmi hadii la ka faduuliye mar isfeera maanta farta la ka jawaabay oo teeganta war xilligii farta la iskala hadlay waa la iskala tagay xilligan TM qarax wada bugul isku siinaya ariya anigu TM iyo qarax kaalama hadlina dadkan ya qabiilkiisu dilay iyo odayaasha fiirsahayaan ka hadlaayay imaqla war yaa dagaalka xaraale siyaasad baa ku lamaan baa leeyahay qabyaalad kaliya ma war caqiida ba la xiriirtay siyaasad kaliya xitaa ma war dagaalka shabeellada dhexe naftarkiisa faraha godanaa la yiri arooyo warkaan hayga dhexgelinaha dad maranaatihiin oo kuwa geedaha hoostoora isku dilaya xabad ma dhaantiine imaqla geed hoostiis waa baroonyo waa lagu gambadaaye barxad cad baa la isku laayaadeero maandhow aniga qof kale aad ii malayso waygu ajarantee adeerka miihiyeho dadkii hadday dagaalameen duqowdii misku daawehe dadkii hadday dagaalameen duqowdii misku daawehe haye war adeer oday wax kala celiyo sooma dhawaan odayaashii siyaasiyiin noqdeen xildhibaanada ayaga soo xula war Sheekh Cali Wajiis khayr Allah siiyo wuxuu yiri dadka isdilaya waxay ka faa'iideyaan dagaalka abaar diin la'aan iyo walaal la'aan buu yiri waa runtiisa hore waxa loo yiri walaalihii culoobe ibliis geliyo aynaanka ee carun bilaash loo qubiyo dulinka caadaysta calafkood layeen meel kale loo cawilayay cirku umada oo waxay dhaxlaan cara ilaaheeye waxa la aynada muuqdo oo cimil wadaagaane iscafiya asaara jirto shay uquba leh war intii sheekhu sheegay baad ku gabayda waxba kuma aan darin mid kale ku darayo wuxuu yiri madaxdii dalka shacabkii ismari ayagana la mari ee yaad matali ood maamushin war lanki meeliyo andaran marhaba maamulaayaan magac iyo dhulkay ku macaashayaan saasa mas'uuliyada hareed war ra'iisul wasaare qeyr xal qodbad kulul buu jeediyay yaa u soo karkarshay war waqtiga u karkariyay naga dhageyso wuxuu yiri isbeddelka socda hadii aad ka kululaateen waxa ka daran midka soo socda adkaysi ayaana loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed waa inay u diyaar garoobaan mushaarka ciidankeena markii hore waxa dhiibi jiray Imaaraadka Mareykanka iyo dawlado kale balse haatan canshuurta qarankeena ayaa laga dhiibaa ciidanka waa la siiyay mushaarkooda inta cabanaysana waa kuwa aan wali la diiwaan gelin mana noo sinna askarta furinta ku jirta ay dhimanaysa iyo kuwa aan waxba qaban war ra'iisul wasaare wuxuu yiri shaqo leexsan lama ogola iyo askari adeerkiis daw joogo anigu waxaan dhihi lahaa gardarrooyinka farabatay geyshka lagu haayo haddii aan go'aan madaxdiyay maanta laga gaarin oo aan garawshiyo la helin gobiya xaalkeeda gabalkeed dhaxyo dawladnimo waa gabaabsaday ilaahu han naga gabaawsiin war dawladnimo wax lagu waayay lagu heli maayo isbarbaryaa aryaadaha war ma haysiina wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Sabriya Qarafaana ka waramay wuxuuna yiri federaalku dhibaato iyo isdhinac roorow nagu haaya waana inaan samaysanaa sharci kala xadida awooda maamul goboleedyada qabyaalada iyo fidnada isgarab yaacaysa ma haddaad keenta qabyaalada sharci loo sameeynaa wax qabyaalada weeyo qalbigeena ka mayra qarafaan ma haya isaga shir qabtay war ra'iisul wasaare qeyr wuxuu yiri maamul goboleedyada tababar ayaa loo furayaa tubaha qaranka ayaana la barayaa digtoonaba mid hore kow miyaa la dhaha dawladda federaalka ayada yaa tababaray horta war dawladda Jabuuti waxay tiri ciidanka Soomaaliya tababarayna waliba waxaan baraynaa yiraahdeen sida
qaraxyada looga hortago marka anu waa yaabay habanna bartamo xume yaab Jabuuti baray sida qaraxyada looga hortago war oday fadhi legdan la fudud yaleere war liyaw qarannimada bartay war taliyaha booliiska Soomaaliya wuxuu yiri waxaan dhacay adduunka dhan ay ka dhacaan qof kastana waxaan u tababareynaa inuu naftiisa ilaaliyo taliyaha milatariguba wuxuu yiri aniga iyo taliyayaasha ciidamada iyo gudoomiyaha gobolka oo hal baabuur isla saaran aan qarax ku siganay muga feejignaan abni ma jirto yiri feejignaan abni inoo injirna runtiisu may baabuurka iskala aruuri inta saraakiil war feejignaanta laga waayay taliyayaasha ciidanka yaa laga rabay awal war taliyaha milatarigu marka uu sagtay miyuu ogaaday inaan feejignaan amni jirin arada waxaa leeyahay naftiis gabay naf kale ma kalkaalo war nin baaxadkiisa wuxuu kula balamay in hoteelkii 20 sano ka hor ku arooseen ay dalxiis u tagaan kadibna xaaskii mashquushay oo isaga hoteelkii uga hormaray kadibna wuxuu damcay inuu xaaskiisii fariin u diro nambarkii baa inta ka qaldamay ay fariintu waxay u dhacday naaginta ninkeedii geeriyooday aaskiisii ka soo laabatay markay fariinta aragtayna way suuxday fariintan waxay u qornayd xabiibtii waan sama tegey meesha aan joogin aad bay u qurxoon tahay maadaama ajmaha safar soo tahayna dhar badan soo qaadan kulayl ayaa jira arow yaadan inoo jimaadimadaasoo ka aalay war anu waxaan la yaabana Ismaaciil Umar Geelle markuu xamar yimid wasiirkii arrimaha dibadda ee Eritrea Hargeysa ka degay marka maxaa isku soo aadiyay war Eritrea iyo Djibouti miyaan khilaaf u dhaxayn war yaa tartanka geeska Afrika way war madaxweyne Farmaajo markii uu la kulmay Abiy Ahmed iyo Uhuru Kenyatta imaaraadku waxay waceen musabbixi war gadaasan ma gordaasan golo gubitay guduroor yaleere war Abiy Ahmed maanta qadar waaday fahad ma la socday war yaa dad mananaatiina nagu kala wada meeshan war yaa magacaada أريانا غيلة نجاجي دقاستا قبيالة دين قربت قران ميا يدين قابا